بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. waxaan aad ugu faraxsanahay caawa inaan ka soo qayb galo xafladan si wanaagsan loo soo agaasimay oo ay soo diyaariyeen Gogoldhig company-ga Gogoldhig Media oo ay hogaaminayso soona aastay walaasheen Iqra Abdalla Guure. waxaan leeyahay hambalyo sanad guurada labaad oo company-ga. waxaan salaamayaa marka ugu horeyso Iqra iyo gabdhaha dhalinyarada iyo wiilasha oo la shaqeeyo oo runtii howl wanaagsan oo loo baahan yahay haya. sida ogtihiin media iyo kambaniyasha waxay siiya waxa weeye wax muhiim ah oo maanta Soomaaliya ama xamar loo baahan yahay in ay muxuu ahaay wax ka qabtaan sababtoo ah waa habka la isku gaarsiiyo ganacsiga iyo akhbaariyaasha iyo qof kasta wuxuu haayo inuu wax qofka kaleeto gaarsiiyo waa wax aad iyo aad loogu baahan yahay. sidoo kale arinta ayada ah hawshan waxa wada dad dhalinyaro ah oo ay hogaaminayso macallimad Iqra oo hadda mataqaana aniga ka soo qaybgalkeygii oo aan islahaa wax xaflad iska caadi waaye waxaan soo dhaxgalay muxuu ahaay academic xaflad academic ah maxay waxaan ka qaybgali jiray jaamacadaha iyo goobaha waxbarasho ayaa laga waci jiray. waxaan ka socdaa jaamacadda Banaadir waxaan ahay hormuudka kulliyadda afka iyo ilkaha dentalka ee jaamacadda Banaadir. marka aad iyo aad ayaan u faraxsanahay. marka hore waan naxsanaa waxaan dhahay waxa iska soo dhaxgashay meel ma aragtay oo dhalinyaro waxa iska soo dhaxgashay meel oo mataqaana company-gii oo imaan jiray meelay xafladda lagu qabo oo haddana ma aragtay mataqaana oo muxuu ahaay ayagana hadda maanta xafladooda ay tahay muxuu ahaay dhinacana waa ku faraxsanaa dhinacana waxa isdhahay waa mataqaana meesha oo adiga iska soo dhaxgashay. hadda laakiin markaan ogaaday in oo muxuu ahaay macallin Iqra iyo dadka la shaqeeya ay dhinac hadda waxbarasho ay wax soo saarayaan marka aad iyo aad ayaan muxuu ahaa ugu farxay. waxaan isir meeshan waa meeshaadii. waxaan kaloo salaamayaa dhammaan martida meesha ee ugu horeyso muxuu ahaay fanaanadeeni Nakruma maamada oo fanka oo Nakruma oo runtii ah dad mataqaana aad wadanka oo qiimo ku leh oo dhinaca fanka mataqaana oo taqaaniin oo goobaabin iyo muxuu ahaay iyo wacyigelin iyo muxuu ahaay wadanka ka haya. waxaan rajaynayaa ayada kelmadeedii maanta oo caawa mataqaana meesha noogu soo jeedin doonto inay soo xasuusin doonto wadanimada iyo muxuu ahaay wadada wanaagsan oo Soomaalinimada inay soo xasuusin doonto. waxaan kaloo halka ka salaamayaa marti sharafta kaleeto oo ka soo qayb gashay xafladan oo u badan dhalinyarada iyo marti sharafta oo jaamacadaha ka socda jaamacadii hadda magacyadooda la sheegay anigoo sidaan sheegay ka mid ah jaamacadda oo muxuu ahaay Banaadir. taas waxay ahayd guud ahaan company-ga waxa uu qabanayay anigana waxaan ka mid ahay macaamiishan waa ka mid ahay sida habsamada mataqaana niyad wanaagana uga soo qayb galay oo aan ku soo dhaxgalay saan sheegay meel waxbarasho oo academic ah oo dadka wax isdhaafsanayaan wax lagu baranayo oo muxuu ahaay company-ga Gogoldhig u faa'iideynayaan muxuu ahaay dhalinyarada soo kareysa waxna barayaan. dhanka kaleeto macaamilnimadeeda dhalinyarada soo saartay maxaa yeelay qof kasta hadda markii uu rabo wax cusub inuu soo saaro wuxuu u baahan yahay in loo xayeysiiyo
oo dhalinyarada ay dadka ay soo baxaya ay mataqaanaa kambaniyaashan ay soo saaraan oo muxuu ahay marka maxaa ka wanaagsan in qofka waxa uu yahay ama productiga uu hayo in la ogeysiiyo loo soo bandhigo loo soo muxuu ahay marketing loo sameeyo waa wax wanaagsan hadii kale lama ogaanayo wixii ma soconayo mana gadmaayaan in lagu barto marka dadkan oo kambanigan ayaa ka mid ah dadka muxuu ahay saas oo kale dadka u bara maxaa ka wanaagsan qof oo muxuu ahay wax taraya ummadda wax u taraya in la soo bandhigo oo wixii oo mataqaana uu yahay iyo qiimihiisa ummadda loo sheego wax ka wanaagsan ma jiro hadda maxaa ka wanaagsan haddana laba lamaane oo ayagoo mataqaana maalinta ay joogaan oo farxadda oo ayagana dadka loo ogeysiiyo la soo sheego oo maalintaas la soo sawiro oo muxuu ahay boorkoodii meel lagu soo dhajiyo oo markaas ka bacdi oo martidii la ogeysiiyay in labadan qafood isku faraxsiin maanta loo dabaaldegayo muxuu ahay xafladoodii oo arooskana wax wanaagsan waa intaba kambaniga ayaa muxuu ahay lagu yaqaana oo soo bandhigay kambanigan oo muxuu ahay oo gogoldhig oo ay hogaaminayso Iqra Cabdulle marka aniga tan dambe ayaan markii dambe soo galay oo hadda aan idin sheegay anigoo mataqaana oo mar dhow oo muxuu ahay qof baan iska helnay muddo ka bacdi qoftii markaas hadda arooski marka la sameeyay Iqra u sheegay ayada soo bandhigtay markaas wili boorkii oo ay sameysay 2 bilood ka hor wuu yaala marka arooski saas loo dabaaldegay kambanigan mataqaana soo sameeyay sidoo kale waxaan rabaa goordhow inaan mataqaana abaabulo meel yar oo mataqaana hospital ah sidoo kale kambaniga ayaan u imaanaya waxaan rajeynayaa marka sidoo kale in la xayeysiyo marketing la sameeyo marka waxa isleeyahay idinka mataqaana maxaa dhacay mataqaana ninka odiga mataqaana dhalinyaro la isku ogaayay marka waxaan idin sheegayaa mahmaadii oo Soomaaliyeed ay dhahaysay rugcadaagi soo rogaal celiya marka rugcadaha soo rogaal celiya marka mar labaad iyo mar saddexaad waxaan mataqaana aaminsanahay in oo kambanigan maadaama oo dad badan isxayeysiinayo oo wax oo mataqaana been aan jirin oo aan istahelin isku xayeysiinaya waxaan aaminsanahay kambaniga inuu yahay kambani ka run sheegaya qofka Soomaaliga wax uu tirayo iyo wax uu qabto maxay dad badan oo waxa jiro iska hadlaayo laakiin meeshan waxa waa meel cilmiyeed kambanigan waxa weeye run ahaantii qofka wuxuu qabto oo istahelo bulshada u qabto ayuu ka run sheegaa saas ayaa aaminsanahay xafladana saas ayaan caawa uga soo qayb galay hambalyo waadin hambalyeynaya kambaniga oo dhan Iqra iyo dadka dhan oo labada shaqeeyo kameramaanka rag iyo dumarba wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh